Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafi Show. Waa 10ka bisha afraad 2026 waa markii labaad 24 saac gudahood aan ku kulmayno falanqayn ku saabsan dagaalka Mareykanka iyo Iran u dhaxeeyay taa oo shalay aan diiradda intiisa badan ku saarnay guusha ugu weyneed ee ka gaartay Iran, Mareykanka iyo Israa'iil oo dhinaca iyo Iran oo dhinaca kale ahayd guul weyn ay ka gaartay sida aan falanqaynteennaba ku sheegnay. Marka hore saaxiibada aan halkan ku midowniyo waxaan idinka codsanayaa inaad barnaamijka meel dheer gaarsiisaan sidaas oo kalena aad fikirkiina ka dhiibataan laagna aad nagu sharaftaan insha Allah. Waxaan idin soo xuli doonaa wararka ugu qiimaha badan ee ugu dambeeyay caalamka isla markaasna kuwa ugu xiisaha badan. mahadsanidin dhammaantiin. Inuu ku horeyne Iran ayaa si cad u sheegtay inay aaminsan tahay in Lubnaan ay ku jirto heshiiska xabad joojinta ee labada toddobaad ee lala galay Mareykanka. Washington iyo Israa'iil oo dood ka qaba arrintan ayaa iyagana dhankooda diidan. Khamiistii wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Iran Sayid ninka lagu magacaabo ayaa BBC-da u sheegay in weerarada sii socda ee Israa'iil ay ku hayso Lubnaan ay yihiin kuwa jibin culus oo heshiiska ka hor imaanaya. Ugu yaraan 303 qofood ayaa lagu dilay Arbacadii duqeymo cirka oo lagu qaaday bartilmaameedyo ku yaala gudaha Lubnaan, waxayna Israa'iil ku sheegtay xarumaha taliska iyo goobaha militariga ee Xisbullah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. Dhinaca kale 15 markab ayaa maray marinkan Hormuz oo muhiimka ah tan iyo markii la shaaciyay xabad joojinta labada toddobaad ee u dhaxaysay Mareykanka iyo Israa'iil oo isku dhinacayo Iran fiidnimadii Talaadada sida ku cad xogta laga helay mareegta la socodka maraakiibta ee Marine Traffic. Celceliska maraakiibta maalin kasta mari jiray marinkan ka hor inta uusan dagaalka bilaaban wuxuu ahaa 140 markab. Maraakiibta dhowaan maray waxaa ka mid ah leeyahay 4 markab kuwa oo shidaal gaaska ama kuwa kiimikooyinka qaada, halka inta kalena ay ahaayeen maraakiib xamuula oo noocyo kala duwan ah. Inkastoo heshiiska xabad joojinta uu damaanad qaadayay marinkan muhiimka in la mari karo, haddana mid ka mid ah marinada ugu muhiimsan caalamka, Iran ayaa ka digtay maraakiibta ku howlan inay iska maraan iyagoo aanan ka fasax qaadanin in la gubi doono xitaa haddii ay ka adeegaan inay maraan marinkan iyagoo aanan fasax la siinin. Safiirka Iran u fadhiya Pakistan Reza Amiri ayaa bartiisa X ka tirtiray fariin uu ku sheegay gudoomiyaha baarlamaanka Iran iyo wasiirka arrimaha dibadda Iran inay soo gaareen Islamabad. taa beddelkeedana warbaahinta Pakistan ayaa iyaduna tirtay muuqaalo ay baahiyeen oo muujinayay diyaaradaha Pakistan oo la sheegay inay magaalada Bandar Abbas ka soo galbiyeen diyaaradda siday wafdi ka socday Iran, sida ay hadda warisay Al Jazeera oo sheegtay in wafdiga Iran iyo Mareykanka labaduba maanta la filayay inay gaaraan Islamabad, taa oo ka dhigan inaysan wax wafuud labada dhinac oo weli soo gaaray Pakistan aysan jirin xilli la filayo wada hadallada tan iyo caawa inay furmaan. Falanqaynteena guud ahaaneed waxa aan diiradda ku saari doonaa 2 qodob oo kala ah Shiinaha miyuu ku faa'iiday dagaalkan socdo ee u dhaxeeya huwanta oo aan ka wada Mareykanka iyo Israa'iil oo isku dhinaca iyo dhinaca kale Iran. Dhinaca kale waxaan fiirin doonaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inta uu dagaalkan socday sumcadiisa siday ahayd oo ah gudaha Mareykanka. labadaas qodob ayaan diiradda saari doonaa. Aynu ku horeynaa wargeyska The Wall Street Journal ayaa ku warramay in uu Shiinaha cidda ku qancisay Iran inay heshiis xabad joojin la gasho Mareykanka, taas oo uu sheegay in uu heli doono sumcad diblomaasiyadeed oo dheeraad ah iyadoo tallaabadan uu Shiinaha qaaday uu arki doono Trump mid isaga caawinaysa xilli uu cadaadis ka wajahayay Iran oo diiday xabad joojin. Warbixintu waxa ay sheegtay in hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping uusan ujeedo la'aan ka ahayn gacansiinta uu Trump gacan siiyay, uu ka doonayo Trump in uu bedelo mowqifkiisa Mareykanka ee ku aadan Taiwan marka uu Trump u booqdo bisha May Shiinaha waxaa leeyahay waxa uu gogol xaar u sameynayaa in uu liqo Taiwan, wadanka yar ee lagu magacaabo ee ku dhex yeela Shiinaha. Marka hore Mareykanka ayaa aad ugu soo horjeeday in Taiwan la liqo, laakiin haddii laga marsado ayaa leeyahay Taiwan si fudud ayaa lagu liqi doonaa maxaa yeelay waxaa dhammaaday difaacii hawada ee Mareykanka. Dhinaca kalena Shiinuhuna wuxuu gacan siinayaa Mareykankii, taa oo si fudud
u sahli karta in Taiwaaniyiintu la laqaba. Shiinuhu wuxuu u ciyaarayaa istiraatiijiyad aad u weyn taasoo aan khasaare badan uga baxaynin, laakiin Mareykanka waxa uu galay ayaa leeyahay dhibaato aad iyo aad u xoog badan marka loo eego juqraafi siyaasadeedka uusan aqrin waayey ama uusan aqrin Mareykanka, gaar ahaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku aadan dhinaca iyo Tehran meesha ay ku taalo waa juqraafi aad iyo aad u adag, waa dhul buuraley ah aadna u baaxad weyn. Dadka ku nool waxaa lagu sheegaa dadka ugu mowqifka adag ee ugu xag jirsan marka laga hadlayo dhinaca bariga dhexe. Haddii aynu fiirino qodobka ku aadan gudaha Mareykanka, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sumcadiisa aad iyo aad ayay hoos ugu dhacday ayaa la leeyahay sabab la xiriirta dagaalka in la'aanta ay ugu galay Israa'iiliyiintu. Iyagu waxa ay u arkayeen dagaalkan in uu bilowdo fursad aad iyo aad u weyn, maxaa yeelay saaxiibkoodii weynaa ee Trump ayaa mar kale xukunka ugu soo laabtay, sidaas darteedna waxay istuseen in Iiraaniyiintu ay aad iyo aad u jilicsan yihiin. Dhanka kale madaxweynaha Mareykanka ma uusan aqoon uma uusan lahayn ayaa la leeyahay dhinaca iyo Iiraan waxa ay ku taalaa meel aad iyo aad u adag ama juqraafi aad iyo aad u adag, maxaa yeelay dadkooda waa dad aad iyo aad u adag, iyagana halka ay ku yaalaan ayaa ah meel aad iyo aad. sidaas oo kale waxa ay leeyihiin marin muhiim ah oo hadeertaanba ay u adeegsadeen in kaar cadaadis ahaan ay ugu isticmaalaan dagaalka socday. Intaasoo isbiirsatay ayaa waxaa la leeyahay Mareykankii waxa ay ku qasbeen in uu adduunyadii ku horkufo. Intaa kadib waxaa dhacday in Mareykanka uu Shiinaha barbaryo uu ka dalbado in Shiinaha uu soo baryo Iiraan ay si xabajoojin loo gaaro. Israa'iiliyiintu iyaga dhankooda wixii ay doonayeen intooda badan waa heleen, oo maxaa yeelay waxa ay rabeen in Mareykanka kaliya ay dagaal geliyaan, laakiin Mareykanka waa cusub uma aysan ahayn 28kii bishii Febraayo ee 2026 oo ah sanadkan aan ku jirno, maxaa yeelay dagaal uusan qorshaysnayn saraakiishiisa ammaanka iyo dhanka falanqeeyayaasha amniga aysan istiraatiijiyad ka lahayn ayaa la geliyay, taa oo sababtay in Mareykankii uu adduunyadii ku horkufo, dhaqaale ahaan uu jabo, sumcad ahaan uu jabo. Dhanka kale xisbiga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa la leeyahay doorashada hadeertan soo aadan aad iyo aad ayuu u jabi doonaa, maxaa yeelay dadka Mareykanka shaqadooda ma aha dhinaca siyaasadda iyo warbaahinada caalamka waxa ay sheegayaan, laakiin mar walba waxa ay fiiriyaan iyagu waxa loo yaqaan jeebkooda ay fiiriyaan. Jeebkooda hadeertaana caqabad aad iyo aad u weyn ayaa soo wajahday, taa oo sababi karto in Mareykanka mar kale ay dib u shaandhayn ku sameeyaan xisbigan madaxweynaha uu ka tirsan yahay ee Donald Trump. Dhanka kale Mareykanka waxa uu loo sheegay in regime change lagu sameyn doono dhinaca iyo Iiraaniyiintu regime change waa lagu sameyn waayey. Sidoo kale waxaa loo sheegay in marinka Hormuz xoog loo furi doono, tiina waa ay dhici weysiyo marinka Hormuz hadeertan Iiraaniyiinta ayuu gacanta ugu jiraa, weliba iyagoo canshuur aad iyo aad u adag ka qaadanaya ayaa halkaas ka dhici doonta. Sidoo kale waxaa la leeyahay waxa uu rabay Mareykanka in uu dadkiisa ama dadka Iiraaniyiinta laga horkeeno madaxdooda, tiina waa dhici weysiyo. Dhinaca kale ay wax walba isu rogeen oo Iiraaniyiintu waxay taageersan yihiin madaxdooda si weliba ka xoog badan inta uusan dagaalka bilaabin. Inahaas oo iskaashaday ayaa waxaa la leeyahay Mareykankii waxa ay ku qasbeen, gaar ahaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, inuu adduunyadiina ku hor ceebabo, dhaqaale ahaanna uu u jabo.